golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sanadda 2019 oo dhan 340 milyan 6,149 dollar. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in kulanka golaha oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre in si aqlabiyad leh ay ku meelmariyeen miisaaniyadda oo ka badan miisaaniyaddii sanadkii hore. wasiirka ayaa sheegay in ilaha dhaqaalaha miisaaniyaddan laga helay in la qorsheeyay 2019 ay ugu weyntahay dakhliga laga helay gudaha dalka ama canshuurta laga soo ururiyay shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna u mahad celiyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee isku xilqaamay in ay canshuurta bixiyaan, asagoo sheegay in isku filnaansho uu gaari doono dalka Soomaaliya haddii shacabku ay canshuurta bixiyaan. waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta wasaaradda miisaaniyaddaas oo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen ayaan aad ugu faraxsanahay. maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaad iska rabdhigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyo. sanadkiina dhaafay wax waliba horta waxa budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye 340 milyan ayuu yahay. sanadkii hore budgetka guud ahaaneed 247.6 uu ahaa. marka kororka halka ka kormay ilaa 50 milyan ayaad arki kartaa. laakiin waxa aad iyo aad muhiim ah inaan fahamno waxna waa wax adduunyada kale inoogu deeqayso, waxna waxa weeye wixii inagu gudaheena aan ka ururinay. asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wixii gudaha laga ururiyay ayaa asalku yahay. lafteeda ilaa sodomeeyo ayaa ku soo kordhay. waa wax aad iyo aad loogu farxi kara weeye. waxa kale oo ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegay aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ay beedmo. waxa kale oo ku faraxsanahay waxa weeye in hay'adihii social sector-ka la odhanayay ama education-ka tacliinta iyo caafimaadka iyo constitution-ka iyo meelihii aad dadweynuhu u daneynayeen inay wax ugu jiraan. ma nasan doono mana istaagi doono ilaa hadafka dawladdu leedahay aan gaadhno oo ah inaan ku filaano waxaan inagu isku filaano. Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in miisaaniyaddii loo kordhiyay wasaaradaha tacliinta sare, caafimaadka iyo sidoo kale dastuurka si adeega bulshada kor loogu qaado. Mas'uud Cabdullaahi Aadan, Universal TV, magaalada Muqdisho.